hay-adda wadaniga ee Soif ayaa habeenkii xalay xaflad qalin jabin ugu qabatay hotel Deer ee magaalada Burco dufcadii toddobaad ee ka qalin jabisay xarunta barashada xirfadaha kala duwan ee hay-adda Soif oo ka koobnaa 50 arday oo baratay xirfadaha accounting iyo dawaarka waxaana isugu jireen wiilal iyo gabdho. munaasabadaasi ee mid si heer loo sagaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer Xasan Jaamac, isduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Marwo Caasha Cali Qabiile, la taliyaha arrimaha maamul dejinta dawladda hoose ee degmada Burco Professor Hinda Maxamed Jaamac, xildhibaan Jaamac Samatar Warsame oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Berbera, xildhibaan Cabdilaahi, mas'uuliyiinta hay'adda wadaniga ee Soif, waalidiin iyo ardayda qalin jabinaysay. Gorintiba wax munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda wadaniga ee Soif Cabdirasaaq Salaad Cali waxaanu ka warbixiyay xarunta barashada xirfadaha ee hay'adda Soif iyo ardayda qalin jabinaysa. caawa halkan waxaanu joognaa xidhitaankii kooraskii lagu dhigan jiray xarunta tababarada iyo xirfadaha ee Soif kaasoo ay caawa u dabaaldegayno dufcadii lixaad ee ka qalin jabisa intii ay furnayd xaruntani. ardayda caawa halkan aynu fadhinaa waxay isugu jiraan laba qaybood oo kala bar ah: arday baratay dawaarka oo ah haween sooca iyo arday baratay xirfadda xisaabaadka laga shaqeeyo xafiisyada ee loo yaqaan accounting-ka. ardaydan waxay baranayeen muddo 6 bilood ah xarunta, qaarkood tababaray qaateen, qaarna nasiib uma helin weli. waxa aan aad iyo aad u bogaadinaya ardayda kamida oo qaarkood shaqooyin heleen intii ay ka baxeen xaruntan. isduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada gobolka Togdheer Marwo Caasha Cali Qabiile iyo la taliyaha arrimaha maamul dejinta dawladda hoose ee degmada Burco iyaguna hadallo halkaasi ka soo jeediyay ayaa waxay u mahadnaqeen hay'adda Soif. sidoo kale waxay hadallo waana iyo dhiirigelin isugu jira uga soo jeediyeen ardaydaasi qalin jabinaysay. marka idinka samayn doona dirayska shaqaalaha, kuwa ardayda, kuwa ciidanka laba soo koobi karo, kuwa caafimaadka, nooc kasta oo yahay idinka toli doona. laakiin maxaa la idinka doonayaa idinkuna samir iyo dhabar adeeg iyo dadaal. haddii aad dadaal weydaan oo inta yarad barateen imka aad la dhaqaaqdaan ma yanfac. haddii ay Soif heshay, haddii Soidaaf heshay, haddii urur kale oo muwaadina uu helaba ka faa'iideysta shaaniska hayso in waxba baratay. imse gruuba baynu u baahannahay wax tuuli kara, imse gruuba kan maxaan qaban karnaa, annagu maxaan ka toonan karnaa. dawladda hoose iyo dadka wuxuu toosaa, dawladda dhexe wuxuu toosaa ay joogtaa. marka haweenayna waxa weeye waa wax sahlanna maaha, wax adagna maaha, laakiin waxa muhiimku yahay in waajibkii gudateen inta kalena aad isku daydaan saa isu habayn lahaydeen. waa kuwiina doonayeen hore uga sii maraan. xildhibaan Jaamac Samatar Warsame iyo xildhibaan Cabdilaahi oo halkaas aad laga soo jeeday waxay yiraahdeen run ahaantii talaya tusaaleba waa la idisiiyey. waxbarashaduna waa run oo ma dhammaato. waxa weeyaan haddaad yar tahayna inaad hore ugu sii socotaa baa wanaagsan, haddaad weyn tahayna inaanad ka caajisin ayaa kugu waajiba. haddaan nahay golaha deegaanka degmada, waayo annaga waxbay noo taraysaa arday xirfadeed oo xirfad leh aqooneed skills aad baan soo dhaweynaynaa, waayo waa waxay xirfaddu markiiba ku soo tegi karaan halkan ay aqoonta kale dheer ah wax badan muddo badan ku qaadanayso. gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer Xasan Jaamac ayaa gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ahmiyadda barashada xirfadaha ay u leeyihiin bulshada, isagoona ammaan iyo bogaadin u soo jeediyay hay'adda wadaniga ee Soif. badiyo xirfadaha waxbarashada duwan in dalkii imikatan muddo dheer baynu ku soo jirnay ilaa 1990 in ku soo jirnay jaamacado waqti maalin walba laga baxaa, kuwii ka baxaa tahriibayo dhex haddii xataa uu gaadhay. laakiin xirfadda marka uu ku shaqaysto ee isgaarsiinta barto markiiba wax laga yaabaa in isgaarsiinaha ama shirkadaha isgaarsiinta kala duwan inuu markiiba shaqo ka helo. kuwa badan oo ka helayna waa jiraan oo dalkoodii aaminay oo cidina maanta ka fiicnay. marka waxa weeye taasoo waa tan kale afooyinkee laydinka waayeyna halaga waantoodo oo hal aamino dalka yaan la daba marin. reer yurubka iyo maraykanka inagii bayna soo daba marayaan, inagiina waynu daba maraynaa. waxay ku socon meel laga soo laastay oo dhibcadeedii lasoo dhamaystay oo macdanteedii lasoo dhamaystay
oo khayraadkeedii markay ogaadeen guntooda iyo inagiina inoo dhiibayaan waxaa loo barto. gabagabadiina waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii kala duwanaa ee ka qalin jabisay xirfadaha accounting iyo dawaarka. waa Khalid Bakeele, shabakadda caalamiga ee Itraaf News.